bismillaahi araxmaani iraxiim. kusoo dhawaada janalka maalmaha. waxaan idiin soo gudbinaynaa qiso aad u cajiib ah ayna ku sugan tahay cibro iyo waana qaadasho. qisadan ayaa waxay dhex martay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam iyo haweeney waayeel ah. haweeney waayeel ah ayaa waxay ku nooleed magaalada Maka banaankeeda, waxayna mar waliba maqli jirtay ayadoo laga sheekeynaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam, dadkana loogu digayo in uu yahay ruux dadka lumiyo oo aan wanaagsaneyn. haweeneydan ma aysan dhalin wax caruur ah. maalin maalmaha ka mid ah ayay waxay soo aaday suuqa ayadoona doonayso inay alaab soo iibsato. markii alaabtii soo iibsatay ayay waxay u yeeratay wiil meesha taagnaa oo addooman ah, waxayna ku tiri waxaan doonayaa inaad alaabtan ii qaadaan, lacagna aan idin siiyo. wiilashii hadalkeeda waxba kama aysan soo qaadin. ayada oo meesha iska taagan islamarkaana aan haysan ruux saacidayo ayaa waxaa arkay rasuulka calayhi salaatu wasalaam. wuu u yimid kadibna wuxuu ku yidhi musaacado miyaad u baahan tahay? waxay ku tiri haa. kadib rasuulka calayhi salaatu wasalaam alaabtii ayuu u qaaday isaga oo la luweynayo, wuxuuna u geeyey gurigeeda. haweeneydii markii aragtay rasuulka calayhi salaatu wasalaam naxariistiisa iyo sida uu ugu dhimrinayo ayay waxay ku tiri wiilkayga, waxaan kugu abaalgudo ma hayo wanaaggii aad ii samaysay, balse waxaan ku siinayaa nasiixo qaali ah. markaasay waxay ku tiri waxaa jiro nin ka soo baxay magaalada Maka oo lagu magacaabo Maxamed oo sheeganaya inuu yahay nebi xag allana laga soo diray. haddii aad aragto ninkaas iska ilaali, waa nin beenlow ah oo saaxir ah, dadkana luuminayo. rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi haweeneydii, bal ka waran ninka laguu sheegay haddii aan aniga ahay. haweeneydii aad ayay u yaabtay, waxayna garaweysa waxay tidhaahdo. kadib waxay ku dhawaaqday shahaadooyinka, waxayna tidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah wa annaka rasuulullah. sidaa ayay kusoo islaamtay. qisadani waxaynu ka faa'iideynaa akhlaaqda rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam iyo sida uu dadka ula dhaqmi jiray. kama uusan kibrin rasuulka calayhi salaatu wasalaam in haweeneydan waayeelka uu saacido, islamarkaana uu adkaysto hadallada xunxun ay ku dhehayso. rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay dadka xoolihiina kuma kasban kartaan ee akhlaaqdiina ku kasbada. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. haddii aad ka cusub tahay janalka maalmaha, fadlan sabskaraab dheh, gamaaleelkana riix si ay kuu soo gaaraan waxyaaba cusub aan soo dhigi doono. mahadsanid.